صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa isaga oo cali ibn abi daalib la dardaarmaya ku dhahay, caliyow ha seexan habeenkii adiga oo aanan shan samayn: kow, adigoo aanan qur-aanka dhammaystirin; labo, adigoo aan 4,000 oo diinaar sadaqo u baxsan; adigoo aanan kacbada booqan; afar, adigoo aanan xifdin meesha aad jannada ka degayso; iyo shan, adigoo aanan qancin kuwa kaa soo horjeeda. wuxuu dhahay, sidee ayay u suuragelaysaa rasuulkii ilaahayow? markaa wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam, kow, haddii aad akhriso 3 jeer suuratul ikhlaas waxaad dhammaysay qur-aankii. labo, haddii aad 3 jeer akhriso suuratu alfaatixa waxaad sadaqaysatay 4,000 oo diinaar. saddex, haddii aad akhriso 10 jeer laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir, waxaad booqatay kacbada. afar, haddii aad akhriso 10 jeer laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyu alcadiim waxaad xafiday ilaalisay meesha aad jannada ka degi lahayd. shan, haddii aad 10 jeer akhrido astakfirullaha alcadiim alladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum waatuubu ilayh waxaad qancisay kuwii kaa soo horjeeday. ku dhaqmid wanaagsan ayaan isku rajaynaynaa walaalahayga qiimiga iyo qadarinta iga mudan. faafi walaal fariintan oo la wadaag walaalahaaga kale si ay ugu faa'iidaystaan dardaarankan xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam inooga yimid.